dadka in lagu dheelo wax fiican maaha, in la iscaayo wax fiican maaha, in la isaflagaadeeyo wax fiican maaha. qof xaquuq kule ma jirto, qof waliba nafsadiisu u nool yahay, qof bariisiiya ma jirto. laakiin wallaahi baryahan dambe Soomaalida waxa ku soo badanaysa akhlaaq xumada ayaa ku soo badanaysa. akhlaaq xumada ku soo badanaysa xitaa dad waaweyn, waxaad arkaysaa dad waaweyn, dumar waaweyn, niman waaweyn oo social media soo galaya oo cayle la soo fadhiya, wax kale mooye, wax kale laba qof oo isku taagan marba qof soo qaadanaya iscaynaya. waxaas laga fiican yahay kawaantooba, waxaas wax laga fiican yahay. waxaasi waxay ma noqonayso dadku un baa baalkeenaysiin yaa kawaantooba iskaga taga, waxaas iska dhaaf, waxaas wax fiican maahan yaa, wax fiican maaha. maxaad qof bini aadan hada aflagaadiso maxaa kaa soo galaya, maxaad ka helaysaan? waxaan dembi ahayn maxaad ka faa'iideysaa? qurxey halo qurxo mise qurxey gabar maata wiil maata qof bini aadan hada cayso maxaa ka faa'iideysaa? maxaa ka soo galaya yaa? qabiiladana caynaysiin maxaa ka faa'iideysaan? aan garan waayo anigu meesha u socotiin. Soomaalida meel baa dhigta loo haysta, meesha u socdaan garan maayo, meel baa loo faraqsaday yaa, meel baa u sacabtumanaysiin, meesha u sacabtumanaysiin garan maayo, meesha u socotiin yaa. dadaan is aqoon haddana is caynaya ma garan, meesha u socotiin ma garanayo. waan ku salaamay say qaali qurxey, waan kaa qaaday gabar maata mise wiil, waan kaa qaaday salaanta yaa. maanta xaafadeeni farxada ka jirto, gabadhaa la aroosay, meher ayaa dhacay, aroos ayaa ka jira, farxad ayaa ka jirta, damaashaad ayaa ka jirta xaafadayadii. gabadhaana loo arooso asoo dhigayaa, meher baa maanta dhacay. wiil siista, okay wiilaa tahay, okay waan gashtay, wiil ayaa tahay, okay. intee ku dhawnshahay walaalkay? xagee degan tahay? walaa qoraxda kuleel. laakiin kuleelkan way fiican tahay, fitamiin D ayaa laga helaa, fitamiin waayo qoraxda. Soomaalidu way ka dhuntaa, haddana qoraxdaasaan fadhiistaa, samarka qoraxdaan isku dhigaa, ma fahanti? way ku madoobeynaysaa, laakiin dee madowga waa caadi, waa loo dhashay. qoraxdaan fadhiistaa, qoraxdaan isku dhigaa, fitamiin baa laga helaa, caafimaad baa laga helaa. weliba dadka marka Yurub jooga waxaan u sheegayaa qoraxdaan iska qaranaysiin oo leedin waa ku madoobaanaynaa, waana gubaysaa. madowga waa u dhalatay, madowgaaga ku faan, midabkaaga ku faan, midabkaaga ha ka cararin, ma fahanti? haddii aad dawo ismarmarin midabkaaga originaal yahay, qoraxda waxay kaa qaadayso malaha. laakiin haddii aad dawo ismarisay dabcan qoraxda way ku gubaysaa. gabdhaha waxaan kula talinayaa, walaashay haddaad madowdahay iyo haddaad cas tahay iyo haddaad gaduudan tahayba, midabkii ilaahay ku siiyey ku qanacsanow. markaan qoraxdan waad iska fadhiisanaysaa, qoraxdan waxba kaama qaadayso, waxna kaama bahalkeenayso, waayo jirkaaga wuxuu leeyahay difaac ayuu leeyahay, fahanti? laakiin haddii aad maqaarka korka iska dishid oo aad difaaca iska dhamaysid oo aad midabkaaga bedesho oo aad caddaan ku fakartid, yacni waxay ka dhigan tahay wixii aniga saad ilaahay ii abuurtay yaa kuma qanacsani, abuurtaada kuma qanacsani, waxaan rabaa inaan caddaado. no caddaan maxaad ku falaysaa yaa? caddaan maxaa ku falaysaa? ilaahay si kuu abuuray waa inaad ku qanacsanaataa, midabkaaga ha iska bedelin. naagahan oo lacagta rabaa inay kaa aruursadaan, Soomaaliya dawladda kama jirto, waxa waaye tukaamadii lama xirayo, waxa soo galay lama fiirinayo. qof waliba wuxuu iska soo xaabsanayaa dawo, wuxuu gadayaa wax maaragtay kiimiko ah oo mamnuuc in la gado ah, waa la iska gadayaa. dumarkii way tagayaan, way soo xaabsanayaan, waxaasaa la ismarinayaa kiimiko. kansar baad soo gadanaysaa, kansar ha soo gadan, nafsadaada ha dilin
يعني nafsadaada ha dilin kansar soo gad midabkaaga ku qanacsanow biyo badan cab cunto fiican cun naso qosol farax lugay waxaana laga qurux badnaadaa qalbiga haddii aad tahay qof cuqdad ka buuxdo nacayb ka buuxo dhibaato dadka bini aadanka dhibaato la damacsan ma qurux badnaanaysid laakiin haddii aad tahay qof qalbi fiican qof walba wanaag la jecel qof walba khayr la jecel dantiisa ku mashquulo waad qurux badnaanaysaa si kastaad u madowdahay waad nuuraysaa laakiin haddii kale nuurku wuu kaa dhimanaya haddaad xaasid tahay waxa waaye nuurku wuu kaa dhimanayaa jirkaaga waa inaad ku faraxsanaataa qoraxda waad u adkaysan karaysaa wax kasta waad u adkaysan karaysaa waayo difaac jirku bini aadanka wuxuu leeyahay difaac buu leeyahay maqaarkan waa difaac haddii aad maqaarkan disho oo aad diyaano mariso door nafaad aad mariso maqaarkaagii kaa difaaci lahaa wax walba qoraxda kaa difaaci lahaa wasaqda kaa difaaci lahaa jirkaaga ku baalkeen lahaa wuu kaa dhimanayaa damage ayaa soo gaaraya soo waxaad noqonaysaa qof wax walba xanuun walba cudur walba qoraxda qabowga waxba u adkaysan karin oo inaad noqotid inaad wajigii ama niqaam xirato ama isqariso oo markasta meel maaragtay har aad isku qariso ayaad noqonaysaa soo waxaasoo dhan maxaa kugu kalifay midabkaaga ku qanacsanow wajigiina ha iska hadlaynina maaga inta guryaha idinku yimaada dukaanada kaala ismariya toqoniya habeen baabadow nafsadaaday dilaysaa nafsadaada ayay dilaysaa kiimikada Soomaalidu ismariso